qalab isugu jira baaldoosaro cagaf-cagafyaal iskarogooyin booyadaha biyaha qaada kuwa riiqad maamulka iyo cabirka fogaanta muujiya iyo shaqaale ku labisan astaanta shirkadda dhisaysa wadada laamiga ee dhex maraysa suuqa weyn ee Boosaaso ilaa takada Boosaaso taasoo loogu magac daray Dar es Salaam waxaana iska kaashanaya dowladda hoose ee Boosaaso dowladda dhexe Puntland iyo hay'adaha ku midoobay GPLJ ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigayo bilowga isla wadadaasi taasoo ay ka soo qayb galeen duqa degmada iyo ku-xigeenkiisa xubno ka tirsan golaha deegaanka ururada haweenka guddiga xaafadaha Boosaaso iyo marti sharaf kale waxaana ugu reelkaasi ka hadlay Faarax Maxamed Cali oo ka socda shirkadda dhisaysa wadada Juba Construction waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ama karaamkii aan ku fiican oo ugu badan inaan uga shaqeyno haddii ilaahay idmo waxaan ku codsanaynaa dadweynaha magaalada iyo ciidanka amniga dhammaantood inay naga caawiyaan habsami socodka shaqada Farxad Cali Saalax oo maayir soo noqday Boosaaso berisamaadkii ayaa fariin u diray dadweynaha deegaanka dadku inay wax qabsadaan waa waajib muqaddas weeye maca daalig waxa u garab socda waxay qabsadeen haddana inay dhowrtaan waa laga maarmaan weeye laamidaanu markay bari kacdo oo laamidaasu dhammaato gabaray eedo habar yar walaal ina adeer biya kullaha ku shubi maanta aad iyo aad bay farxad noo tahay shucuurteeda lama soo koobi karaayo wadadii waalada halka ma aqoonta marisay oo wada laamiga loo ka dhigayo ugu dambeyntiina waxaa munaasabada ka hadlay duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halka isugu nimaadno sidii aynu u dhagax dhigi lahay ama loo balaabi lahaa hawsha dhisidda wadada Dar es Salaam ee magaalada Boosaaso wadada Dar es Salaam waa wada dheer dhismuhu ka balaabanaya hadii ilaahay idmo halka hadda aan joogno dhulka laamiga la saaraya wadada waxa uu noqon doonaa 900 mitir wadada Dar es Salaam waa wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Boosaaso ay ka mid tahay wadada waxay noqon doontaa tii sanadkan 2013 qorshaha horumareed ee wadooyinka degmada tii ugu horeysay waxaana si rasmi ah loo dhagax dhigay wadadan Ahmed Shab telefishinka caalamiga Home Cable Boosaaso